waqtigay meeshay ku cuni lahaayeen hala aadaan. madaxweynaha Hirshabelle Cali Guudlaawe oo si xoog ah lagu geyn rabay maanta beledweyne oo ka baaqday iyo dabageed oo sheegay in beledweyne aysan doorasho ka dhicin iyadoo Cali Guudlaawe uusan tagin. waxaa maanta lagu waday in madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe ay si xoog ah ku geeyaan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo xildhibaanada ka soo jeeda deegaanada maamulkaasi oo horkacayaan madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed iyo madaxweynihii hore ee maamulkaasi Cali Cosoble. Cali Guudlaawe ayaa warar soo baxay waxay sheegayaan inuu ka baaqsaday safarkii uu ku tagi lahaa Hiiraan kadib markii magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan xalay ay sheegeen inay la wareegeen ciidan beeleed ku heeb ah Dabageed iyo Cosoble eena ka soo horjeedaan safarka madaxweynaha Hirshabelle uu ku tagay halkaasi. ciidanka la wareegay beledweyne oo ka tirsan qaybta 20aad ee militariga Soomaaliya ayaa waxaa hogaaminaya sargaal lagu magacaabo Cabdullaahi Bare Cilmi oo dhawaan laga qaaday xil uu ka hayay qaybta 20aad ee ciidanka xoogga dalka iyo sargaal kale oo lagu magacaabo Nuur Dheere oo ka tirsan ciidanka daraawiishta Hirshabelle. Korneyl Cabdullaahi Bare oo ahaa abaanduulihii hore ee guutada 5aad qaybta 20aad oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in sababta ay magaalada beledweyne ula wareegeen ay tahay tilaabo ay uga hortagayaan in Cali Guudlaawe awood ciidan lagu geeyo beledweyne. si nabadgelyo ah kula wareegnay xaruntii gobolka Hiiraan laga xukumayay ayadoo wax dhiigo aysan ku daadan waxaana kalifay in la badbaadiyo shacabka reer Hiiraan markay yimaadeen niman ka socda badbaado qaran oo waxay rabaan in gobolka ay ka sameeyaan way noo cuntuma weysay haddaan nahay saraakiishii ka soo jeeday gobolka Hiiraan. sidoo kale wasiirkii hore wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Xildhibaan Cabdullaahi Goodax Bare oo la wareegay kadib la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle iyo siyaasiyiin oo Muqdisho ka watay ee xasarad ka abuureen beledweyne lana musaafirin doono. waxaa magaalada xamar ka tagay niman Dabageed oo watay halkan ka wato siyaasiyiin deegaanka u dhashay ah. siyaasiyiinta caawa qolka ku xareysan ee ciidamadu hor taagan yihiin oo musaafiriska diyaarka u ah waxa weeye siyaasiyiinta qasdigooda oo ahaa in meesha fadna ka dhacdo si doorashada looga qaado. intaas kadib magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa ka bilowday banaanbax xoogan oo ay horkacayeen nabadoono iyo saraakiil ciidan kaas oo laga soo horjeeday maamulka Hirshabelle. nabadoon Cilmi Hagar Guure oo ka mid ah nabadoonada beesha Xawaadle qaybta ka soo horjeeda Cali Guudlaawe ayaa waxa uu tilmaamay in marnaba aysan aqbalin in Cali Guudlaawe uu tago Hiiraan. gaajo gobolnimada waa la qaadan karaa laakiin daragunnimada lama qaadan karo. waqtiga soo qaatay waqtigay meeshay ku cuni lahaayeen hala aadaan. iyadoo xaalad kacsanaan ay gashay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa ku dhawaaqay inuu iscasilay afhayeenkii maamulka gobolka Hiiraan Cabdi Muumin Iidow Cilmi. qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ayuu ku shaaciyay iscasilaadiisa isagoo taageeray ciidamadii la magacbaxay badbaadi Hiiraan ee xalay la wareegay xerada Magalaay iyo xarumo kale. waxaan bogaadinayaa shacabka sharafta leh ee reer Hiiraan iyo saraakiisha badbaadi Hiiraan. waxaan si toos ah iskaga casilay xilkii afhayeenka maamulka gobolka Hiiraan ayuu ku yiri qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook. isla xalay dagaal qasaare geystay ayaa ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan kadib markii ay magaalada soo galeen ciidamo uu watay Generaal Xuud oo horey uga soo horjeestay maamulka Hirshabelle inkastoo amar soo baxay magaaladaasi looga mamnuucay dadka aan ahayn ciidamada amniga ee hubka ku dhex wata magaalada. waxaana la xaqiijiyay in dagaalkaas uu ku geeriyooday hal askari. hore madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa u sheegay in beledweyne aysan doorasho ka dhicin iyadoo uusan tagin Cali Guudlaawe. waxay inta doorashadu ku imaan way kartaa oo kaliya in madaxweyne Cali Guudlaawe imaadiida koow hadduu madaxweyne Cali Guudlaawe inta imaadiida doorashadu tuma karto horena waa u sheegay haddana adika waa idin sheegaa. magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa ka jirta xaalad kacsanaan ah oo aan la saadaali karin sida isku bedeli doonto. haddaba maxay kula muuqataa arrinta gobolka Hiiraan ka jirta?